بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وطبعا كسو هذا إني أرميه كسب سنة قفك قلبي جيساء حنونة يجروين كقدعة. وطبعا كسو دقنا أفر حبو آفات القلوب، قلوب مصيبين كقدعة ونفتا هدديل دقدق حاسنيمو يا كبر. afartaasna ka soo dhignay afartaa markaan soo marnay xabadii koowaad waa ka soo baxnay, waa soo sharaxnay. xabadii labaadna waa soo sharaxnay. midda saddexaad hadda marayna oo ah xaasidnimada. midda saddexaad oo xaasidnimada ah ayaan hadda maraynaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay xaasidnimada dhibkeeda wuxuu yiri alxasadu yaakulu alxasanaat kama taakulu annaaru alxadab. xaasidnimadu waxay cuntaa qofka xasanaadkiisa iyo ajarkiisa way baabi'idaa sida dabkuba uu baabi'iyo qoryaha oo dambas uga dhigo. iyaduna camalkii aad soo martay iyo waxa soo shaqaysatay dambas halkaas eber uga dhigayda. marka waxaan isweydiinaynaa labadii hore hadda aan soo maraynay markii aan ka sheekeynay waxaan lahayn qofka acmaashiisa soo socota ay baabi'inaya, laakiin midaan waxa dheeri u ah camalkii aad soo marto hore u soo maray oo laga aqbalay iyo waxa Ilaahay aad hore u soo shaqaysatay xaasidnimada eber ka dhigayda. xaasidnimadu waxa weeye qofka qof nicmo Ilaahay siiyay inaad ka xasado. nicmadaas ama hanti ha noqoto, ama wax weeye aqoon ha noqoto, ama wax Ilaahay siiyay oo Ilaahay markaas uu ama fasaha ha noqoto, wax Ilaahay siiyay markaas wax rabaa ha noqdeen in qofka aad ka xasado weey. marka daawadeeda gadaan ka keeni doonay wax lagu daaweeyo, laakiin sidaad ba horta u ogaanaysaa waa khabiisa tii hore wax badan ka liidata kuwa hore wax badan ka liidata. Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri min sharri hasidin idha hasada. waxa tiraahdaa nabi maxamed alayhi salatu wasalaam iyo dadka dhanba waxa tiraahdaa wa min sharri hasidin idha hasada. Ilaahay waxaan ka maan galaa qofka xaasidka shartiis markuu xasday oo xaasido. marka waxa dib ugu filan baa la yiri quraankii in lagu sheegay Ilaahay uu yiri Ilaahay laga maan gala xaasidka inay iga maan galo Ilaahay ka maan gala xaasidka in Ilaahay yiri ab xaasidka waxa la yaab ugu filan iyo dib waxa la shar ugu filan intaas Ilaahay inuu dadkii inuu uga digo uu yiri xaasidka Ilaahay ka maan gala. dibka xaasidnimadu ay keento waxa kamida mid hadda aan ku soo sheegay acmaasha qofka eber in ka dhigaydo wali mid hore tagtay wixii dhama. waxa kale oo kamida qofku inuu macaasida uu ku dhiirado oo waxyaalo dadka uu iska xanto waxyaalo badan markaas qofkii mataqaana uu marka dib u keeno. ilaa hada qofkii xasideeda ma ogtahay afkana waa ka hadlayda qalbigana balaaya ku hayda marka xankana waa sahashan. waxyaalaha ay keento waxa kamida qofku inuu dhibtoodo oo dib badan uu maro hadana dhibkii uu faa'iido ka helin. wax walba qofku uu muraadkii uu lahaa adduunyo aqraba hadduu hatta adduun yahay hadduu aqra yahay xaasidnimada hor istaagayda. Soomaalidu waa taqaan waxay yiraahdeen qofkaas ma bula xaasid ma bula leeyahay xaasid ninka leeyahay ma bula waa runtii qofku adduunyo aqra mid wax qofku muraad u lahaa ma gaaraba hadduu qof xaasid yahay. dibka kale haysta waxa kamid ah ay keento qofku qalbigiisa inuu arag beelo. qalbigu waxa laga arkaa moogta qalbigu waxa laga arkaa waxa weeye hadda saa u socoto waxaad dareemayda waxaas qalbiga ka dir waxaas waxan waxaas ka leex. qofka xaasidka qalbigiisa inta waa laga siibaa. qalbiga waxa kaga soo dhacayo Allah wax waxan yihiin xaasidka inta waa laga siibaa qalbigiisa. oo dhibkaas waa bilaayada macnaha haysatay kamid tahay. waxyaalaha xaasidnimadu way badan tahay, dhib badan baa laga dhaxlaa. marka qaabka lagu daaweeyo xaasidnimada waxa kamid ah waxa lagu daaweeyaa ilaa huwa qalbiga moogtahay qalbiga in la daaweeyana daawo la marin maayo kaniin la siimaayo wax kala adaa difaacay adaa la rabaa qalbiga inaad wax kala gelido. waxaad qalbiga gelinaysaa way yiraahdaan kitaabuhu in waxa la rabaa qofku uu isku daaweeyo qofkan xasdeeda adiga waxaan ku xasdeeda mada horta siiyay idiga ma siiyay ma Ilaahay siiyay asaga mada abuurtay ma hay حكوا استمر قفك ملهي نعمة ملهي wax meesha ku yaal bal ma arko idii waxa tahay guri soo dhaco kale sidee saaxibini islaami
guri islaameed tuug u soo dhacay habeenbarkii aad la mid oo rabo inuu wax ka xado haye marka haddaad tuugta haddaad guri islaam ka bax marka khalaas intaas ku dhamaatay